السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي إذا أنجعلها ميل والبو أد جوجتان هدي أنا ugu cusub tahay fadlan na soo subscribe garay saa mar waliba ula socoto barnaamijyada xiisaha badan ee halkan aan kusoo gudbiyo maanta waxaan rabaa inaan isla fiirino dagaalka ganacsi ee ka bilowday wadamada Mareykanka, Canada, Mexico iyo China sidaan ka warhaynaba madaxweynaha la doortay ee dalka Mareykanka Donald Trump ayaa canshuur 25% ah kusoo rogay wadamada Canada iyo Mexico maalmo kadib waxa uu jawaabay madaxweynaha Mexico haweeneyda taasoo sheegtay inay 25% ayadna ay canshuuri doonto alaabaha laga keeno dalka Mareykanka sidoo kale ra'iisul wasaaraha dalka Canada Justin Trudeau oo la hadlayay shacabkiisa ayaa sheegay in Canada 25% canshuur ay saari doonto alaabaha laga keeno dalka Mareykanka wuxuuna Justin Trudeau sheegay in dadka reer Canada ay gacmaha isqabsadaan ayna isticmaalaan alaabaha ay soo saarto Canada sidoo kale China ayaa maantay 15% canshuur ah kusoo rogay alaabaha laga keeno dalka Mareykanka waxaa muuqato in dagaal adag oo u dhaxeeyo wadamadaas oo xagga ganacsiga oo ka bilowday caalamka taas kadib madaxweynaha dalka Mareykanka oo xaaladdu ku xumaatay ayaa xalay la hadlay haweeneyda hogaamiso dalka Mexico wuxuuna sheegay in muddo bil ah dib loo dhigay canshuurtii lagu soo rogay dalka Mexico taas bedelkeedana ay Mexico sameeydo 10,000 oo militariga Mexico in la geeyo xadka Mareykanka iyo Mexico kale Trump xalay wuxuu la hadlay ra'iisul wasaaraha dalka Canada Justin Trudeau wuxuuna sheegay sidoo la mid ah in muddo bil ah canshuurtii Mareykanka oo saaray badeecadaha Canada dib loo dhigay taa bedelkeeda Canada ay geedo xuduudka ciidamo dheeraad si looga hortago daraagiska dilaaga ah inuu soo galo gudaha dalka Mareykanka waxaa muuqato in madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump oo la kulmay cadaadis oo na filaneyn kaas oo uga imaaday shacabkiisa sidoo kale ma maleysanaynin in wadamada Canada iyo Mexico iyo China ay ka soo jawaabi doonaan canshuurta oo saaray waxaase muuqato inay dhabarka xirteen una jawaabeen madaxweynaha dalka Mareykanka adduunka maanta wuxuu noqday waxaa ka bilowday ganacsiga dagaalka sidoo kale shalay waxaa shir yeeshay midowga Yurub waxayna ku yeesheen magaalada Brussels si ay uga hortagaan canshuuraha oo sheegay madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump inuu kusoo rogi doono alaabaha midowga Yurub waxayna sheegeen midowga Yurub inay u diyaarsan yihiin wax kasta oo uga yimaado Mareykanka ayaa maalmihii la soo dhaafay wuxuu waday cadaadis xagga diblomaasiyadda ah oo ku hayo wadamada caalamka tan iyo markii la doortay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump waana arki doonaa halka uu ku dambeeyo ganacsiga xagga dagaalka caalamka iyo waxyaabihii ku soo kordho. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.